ninka naarka aan kulahay waa arkay imo hadda iga soo gaarabo ninkan ayaa baraha bulshada dhalinyarta isticmaasho oo dhan ka yaabiyay asagoo xasuus aad u weyn geliyay sababta igu dhiman maxay tahay أعوذ بالله سبحانه naarkayga la iska rabaa maanta walaa la kala bixi maayo ورا ملا ما كامل كوكو جرت معاه نفع لها نفس بعض maxaa la dhahaa يا أبا دينا ما يقول هذا معي قربتها ninkan odayga ah dhalinyarta waxay leeyihiin maasha Allah codkiisa dhalinyarta boqolkiiba 80 xasuus buu geliyay waxayna taagan yihiin war ninkan waa nin bulshada Soomaaliyeed anfacaya oo comedian ah waa nin bulshada Soomaaliyeed anfacaya oo dhankaas iyo xataa turjumaanta ama codeynta filmaanta u anfacaya waa nin dhalinyarada Soomaaliyeed anfacayo oo majaajilista noqon kara ninkan muuqaalkan sida kadiska looga duubay dib ha loo raadiyo oo ha nolo soo fariisiyo balse aan si fiican ugu dhageysano كرسم بابي korsan bab ala imo halow soo marsan dadka ma lagu dhagaa iga soo gaaraaday walaalo waa ku tuugana naxdilkeena kan miya kan way ha naarkayga iga qalbi kala bixi meena maanta abu gaar abu gabadha markeesino kale rag ma loo way baladka feere rag ma loo way maxaa ninkan codkiisa markaa maqashay yaa si automatic maskaxiyan adiga kugu soo dhacay commentiga bal qofka aad markaas xasuusatay commentiga nagu wadaag ama xasuusta uu galiyay arni ma waa ku tuugta neefsab maxaa dhacay xujra nafku leedino idinka lamidin waa leenahay gabadha meherkii qaar farta cadda barta intaad sambabeesha lamidin dadka muddo ma soo tashataan dadka sida kadiska looga duubayo ee aamusan ee bariiskooda raadsanayo dad badan oo ilaahay uu minhooyin iyo mataqaana hibooyin uu siiya ku jiro hadda ninkan muuqaalkan inuu trended noqdo aad u kaco isaga sabab u ahaa isagoo waliba si kadisa loola kulmay haddana qaabku u hadlayo qaabku hadalku baalkeenayo qaabku u shactireynayo dadkii shactiraysa aad u soo jeedatay محرتينه حتى رمنا ميركنا ميركان محاوا اسيغه حتى اني فانسي محاسب محباسه ولي مارك غودا والله بلا تلا معبود لا ريحه ما قاركن غودا مليسكو دheela adin arka la waa wax bogsan walaade war xeeleygi siiyaan ku dhaawal waa gaaga daran bilowga hore shakiya galay waraadi meelahan ma kaamir kugu jirto daadminas waxay ka dhigan tahay qofka maanta Soomaaliya jooga xitaa hadii telefoon niclaa uu wato ama telefoon yar oo wato wuxuu macnaha fahansan yahay in hadii dad wadada ku qabtaan oo ay su'aalo qalafsan weydiiyaan in public prank laga duubi karayo macnaha Soomaalidu waxa moodaa hadii social media si deeply ay u fahmeen ninkan hadii iska socdo su'aalaha markuu goorayso meherkayga aaway dhahday meelahan kaamir ma kugu jirto dhaja public prank uu ka shakisan yahay سيحليك ما حجري سوى حجرة صعب يالله حجران عسكر بحر سيحليك يقا قد حليك نكام ذي خليه فيري أبوه جريه معه مرة هذه نبض والربا نبض ينصر الربا بلد كبر نبضكم مروه تعاوسي بدارتان الله بلاش مولاني نبض تاجرين سيحليك محمد فاروق what a comedian arcodsiyaan wataa ninkaan noo soo qabto ninkaan bulshada Soomaaliyeed meelo badan u ka anfici karaa waa sidii sheegeen dhalinyarta dhanka turjumaada filmaanta dhanka majaajilada dhanka comedianka xaalado fara badan buu anfici karaa dadka loo baahan yahay bulshadu inay mataqaana madadaaliyaan uu kamid yahay dadkan oo kale waa dadka loo baahan yahay inay bulshada sumcad iyo magac ku dhax yeeshaan dadkan waxa waay dad intaas oo kun oo qof ayagoo hortaagan madadaalin kala waay ninkan si kadiisa loola kulmay gabadhii la kulantay waxaan ka codsanaynaa in dib loo raadiyo hadii kale dadka yaqaano war wasiirka ku baafinaya wasiirka ka gaarsiiyay wasiirka ku raadinaya ninkaas la dhaho ninkaas waa nin bulshada anfici karo waay codkiisa markaa maqashay qofkii si khaas ah commentiga noogu soo qor qofkii si khaas ah xasuus ku galiyay oo kugu soo dhacay. Assalaamu calaykum.